madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa habeenkii xalay magaalada Davos ee dalka Switzerland kulan taariikhi oo casho sharaf waxa uu kula yeeshay madaxweynaha dalka Israel mudane Isaac Herzog iyo Eric Trump oo ah wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Mareykanku. kulankani waxa uu ahaa bog cusub oo taariikhi ah oo u furmay xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u bilaabmay labada dal ee Soomaaliland iyo Israel. kulanka oo ku dhacay jawi ku dhisan ixtiraam, kalsooni iyo dana wadaag ayaa labada madaxweyne waxay si qoto dheer uga wada hadleen danaha lama huraanka ah ee labada dhinac wadaagaan, gaar ahaan xoojinta xiriirka dowladnimo, horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga, difaaca, tiknoolajiyadda, beeraha, biyaha, caafimaadka, tamarta, macdanta, horumarinta iskaashiga bulsho iyo sidii labada dal ay uga wada shaqayn lahaayeen nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika cadmeed iyo marinka badacas. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro waxa uu madaxweynaha dowladda iyo shacabka Israel si qoto dheer uga mahadnaqay aqoonsiga rasmiga ah ee dowladda Israel ay siisay jamhuuriyadda Soomaaliland 26 bishii 12 2025 isagoo ku tilmaamay tallaabo taariikhi oo geesinimo iyo ku dhacba lahayd oo huwan damiir bini'aadanimo, taasoo 34 sano ka bacdi si dhaba u xaqiijisay xaqa ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u leeyihiin inay noqdaan dowlad madax bannaan oo ka mid ah beesha caalamka. sidoo kale kulanka casho sharafta waxaa labada madaxweyne ku welinayay wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka ee la yidhaa Eric Trump. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu madaxweynaha dalka Israel u cadeeyay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay saaxiib dhaba oo la isku halayn karo, dadkiisuna aanay weligood ilaawin cid kasta oo abaal u gasha. madaxweyne Cabdiraxmaan Ceerro waxa kale oo xuseen Soomaaliland ay tahay dal jecel nabad, mas'uula, kuna suntan xasilooni, dimuqraadiyad, dowlad wanaag iyo ku dhaqanka sharciga. isaguna dhankiisa madaxweynaha dalka Israel oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay in magaalada Davos ee dalka Switzerland uu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro. waxa uu xusay inuu soo dhaweynayo aasaasidda xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. aad baan ugu faraxsanahay inaan Davos kula kulmo madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ceerro. waxaan soo dhaweynayaa aasaasidda xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal, waxaana rajaynayaa inaan sii xoojino iskaashiga labageesoodka si ay uga faa'iidaystaan labadeena shacab. kulanka taariikhiga ee dhex maray labada madaxweyne ee Israel iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu si cad u muujinayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay gashay marxalad cusub oo aqoonsi, kalsooni iyo saaxiibtinimo caalami ah, isla markaasna ay sii xoojinayso doorkeeda dal mas'uul ah oo wax ku soo biirin kara nabadda iyo amniga caalamka. Cabdicasiis Caydiid Cilmi, warbaahinta qaranka.